بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, waxaan ku guda jirnaa buugga maadada sayniska fasalka koowaad ee dugsiga hoose. Xiisadeena ugu dambeysay waxaan ku soo sharaxnay cutubka afaraad ayaan soo dhameynay oo aan ku soo baranay biyaha, ilaha biyaha laga helayo iyo waxyaabaha loo isticmaalo oo biyaha. Haddana waxaan ka bilaabeynaa cutubka shanaad oo aan ku baran doono cuntada. Casharkiisa koowaad waa noocyada cuntada ayaan ku baran doonaa. Cutubkani markii uu dhamaado casharkani markii uu dhamaado, ardayga waxaa laga doonayaa inuu sharaxo noocyada cuntada, inuu sheegi karo waxyaabaha ay ka kooban tahay. Waxqabadka koowaad waxa aan magacaabayaa noocyada cuntada sawirada hoose. Cuntadan koowaad waa baasto, waa carbohydrate loo yaqaan carbohydrates. Cuntadan waa hilib, protein oo canjeero, gabadhan canjeero dubayso waa carbohydrate. Cuntooyinkan waxaa qudaar, hilib, carbohydrates, protein, waxyaabahaas ka kooban tahay. Sawir qaybo badan uu ka kooban yahay. Qaybtan waxaa rooti oo la foorneeyo, carbohydrate. Sawirkan asagana waa muufo, carbohydrate. Carbohydrates-kan asalkiisa wuxuu ka yimaaday dhirta ayuu ka yimaaday. Waxqabadka labaad waxa aan sheegayaa noocyada cuntooyinka hoos ku sawiran. Noocyada cuntooyinka hoos ku sawiran waa karooto, dhirta ayaa laga helayaa. Caano xoolaha laga helaa, hilib xoolaha laga helaa, galley dhirta ayaa laga helaa, qare dhirta ayaa laga helaa, hilib doorada ayaa laga helaa, mooska dhirta ayaa laga helaa, cambuulo dhirta ayaa laga helaa. Waxqabadka saddexaad waxa aan sax ku qorayaa xayawaanada aynu caanaha ka maalno ayaa sax ku qoraynaa. Xayawaanada kalena waxaa dameer, caanaha sacdan caana ayaan ka helaynaa, maroodi, faras, ariga waan ka maalnaa, yaanyuur, geel. Halkaan aan ku ekeynayaa casharka labaad ayaan ku ekeynayaa. Wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.